waxay noo tahay farxad runtii galabtay inaan halkan idinku soo dhaweyno ergada ka timid Xeraale annagoon u kala harin haday tahay mas'uuliyiintii dawladda federaalka ee Soomaaliya ka joogtay Galmudug ee reer Galmudug ahaa oo labadiisa gole ee baarlamaanka iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda guddiga dib u heshiisiinta saraakiil siyaasiyiin dhalinyaro saxaafad kulli aan leedin kar hal waxay noo tahay farxad runtii waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan gogol furan qalbi furan niyad furan walaaltinimo degaan idin furan oo awal balahaydeen ku soo dhawaada waxa ila tahay reer Xeraale waa u jeedaan soo dhaweyntooda aan loo kala harin haddii ay tahay xukuumaddii iyo xildhibaanadii iyo madaxda dhaqanka iyo dhalinyaradii iyo guddiga dib u heshiisiinta wax soo hara male marka la yiri waxa laga soo socdaa Xeraale laga soo socdaa markii la yiri waa noo jeedin sheekhaana hore u sheego waxa waaye intaas waa farxad weyn ayaa la idinku soo dhaweynayaa annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta way ogtihiin oo ballamaan noo yiilay markaan idinku soo marnay Xeraale oon isku aragnay waxaan noo sheegteen mushkilada taalla meesha waxaan ballankaynu ahaa inaan isku dayno wixii laga qaban karo in laga qabto maanta waxaan ku faraxsanahay marka risaalada aan soo gaarsiino oo shirka in la yimaado inaad soo ajiibteen waxa ay tahay soo ajiibitaankaas marka kaliya intayna meesha joogta ma ahee waxaa naga dambaysa xukuumadda Soomaaliya oo arrintan ka soo shaqaysa aydana oo hadda uu wasiirku nagala joogo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo idin yimiday waxa ila tahay maanta marka ra'iisul wasaarihina waa jooga waa idin sugaa annagana goobjoogan kan waa idin wada sugaynaa kulligeenna farxadaan idinku soo dhaweynayaa ahla wa sahla wa marhaban ayda dhahaynaa soo dhawaada wixii xaaja wixii talaabay noo dambeeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagoo in badan ilaahay ka baryaynay inaan sidaan oo kale helno ajiibidda uu ajiibay iyo nicmooyinka aan la koobi karin uu noogu deeqay baan uga mahadinaynaa waxaan u mahad celinaynaa xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Khayre nagala joogo wasiiru dawlaha arrimaha gudaha guddiga dib u heshiisiinta gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkooda xildhibaanada xubnihii siyaasiyiinta oo dhan odayaasha dhaqanka shacabka gobolka dhammaan waa u mahad celinaynaa waa ku qanacsanahay waa ka guddoonnay sida ay noo soo dhaweeyeen waa ula shaqayn doonaa waxaan dhihi karnaa Soomaaliya aan wax ka maqnayn hadday dawlad lahayd iyo hadday shacab lahayd baa meesha nagu soo dhaweysay waana aqbalnay waana guddoonnay